ha laga daayo ciriiri ha laga daayo dhalinyarada waalidka aan ka midna waxaan ugu baaqaynaa inay fududeeyaan hadii la fududeyn waayo fudud macnaha gabadha la isaga ciyaarana ma yani xoolo meeshan kuma xirra meeshan laba arrin ay ku xirantaa guurku gabadha waa diin ninkuna waa khuluq iyo diin إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه فأمرك النبي ما عليه الصلاة والسلام قف أخلاق محل إيران وها أوبرتو ديني ما كنا قما صلاة هو أوكي سفكر لأن يرى بدنا وحنقنا ما شاء الله صفوف طهارة قرآن آخر مسجدك وحبر الشدود وكفي عنه وفي عام هذا وداد يدلنا قف حلو أقول لي بعد ما له دتكو أقول لي وحي رمان بقرن لنا هذا قف حلو أقول لي واجر عدتك علماء احترام جرينا وعلي جري ورشيقة عد ويمده يو عد صافيرنا شيقة بل هذا حلو وداد ودان هلا قعد أصاو درب يا الله ربا مرك ما الله صعد marka waxa la rabaa in cunuusada la dagaalamo maanta halayga qaado insha Allah taala dadka dhalinyarada ha ka toobad keenan oo guurka kala diriraayo asoo dhalinyaro oo shaqeynaya xataa wax baranaya oo kule sheekh iga wareejay maba ku jiraba hadda ma aha goorma waaye markuu duqoobo naag maba rabo haaye war hadday baashu ku gubay hadda umada fasaadka kada hadda dagaalam islaan xataa hal ku dhimantaa xataa halka aduu ka reeb ku dhowrsan maxaa ku diiday ya gabdhihiina saas hal la sameeyo markaas waxa naga yaraanay fitnada nabigu wuxuu yiri qofkii akhlaaq iyo diin la diimaad u guuriya hadda maxaa jira reeqan saxaduu ahayn maba isguursanaa lagu leeyahay waxaas waa baadil war adiga ciidaan gabadhaan awalba waa hooyo qaraabada dhow waa gooni adoo dad qaraabo la jecesha ilmaaga waa gooni laakiin haday iskeensadaan oo israbaan kuwaasa ugu daran ku dhahaaya sheekho waa iskeensanay waa la isla keen dayriye hadii qaadi jiro waa laga nikaaxin lahaa hadda ka hor anigan waxa ay qabsatay nin macallin dugsiga waagi ceelasha 2011 malana habeen baad al-cish guriga soo gargaraacay waa soo baxay sheekh aan kor iska naqaana gabar wata la igu nikaaxiyo yiri hayr wala nikaaxina anagu xoolo kama rabno yaa la socda waa labadooda isla nikaaxina marka awligii ma waa masaafo waa dadkii waa maqan yihiin hadii fiqi la waay ma loo fadhaawa بعض المسافة وبعض مسألة كله محاضرة كله علماء بدنوا مذهب الشافعي ويبقى قبام والنكاح marka waxaan ku yiri maya ma gali karo waqti qatarana waa lagu jiraa arrinta ma sameey karo sheekh hebelan soo fiirinay waa marka hore waa laga gambaday hadda wuxuu yiri bal waa la soo tashana markii la soo tashan dad iska dhalinyaro ay ahaayeen wuxuu sheekhu xogaa waa cudur daartayo barnaamijkaas wuxuu yiri xogaa ma gali karo ninkii ayaaba war xaq waa tagay sheekhaas waa diiday wallahi nacaaw kala jiifeen oo sheeg nacaaw kala jiifeen dadka saadaya marka adiga way waxa marka ay shariicadu ka hadlayso nabigu wuxuu yiri u guuriya wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir fitna weyn ardada imaana iyo fasaad weyn ayanta maxaa maqleena maalmahan dhageyga waa waashan dhagaha waa laga waashaa moogta maskaxda kaliya maaha anoo min la yaaban waxa la sheegay gabar yariisoo 7 jira oo niman dhalinyaro amuura oo wax barta inta iska barteen duq ayadeeda maskiina la joogtay iska isticmaalaan xaafad kamid ilaahay marka xaliim waa qofka soo astura marka dambe waa soo daahiriya midaa lagu qabto kii marka lagu qabto la dagaalamo la ceebeeyo ani kaliya ay sitiin hebel safka waa ku jiri jireen subhanallah wax lagu qosli karama gabadhi dhakhtar la geeyay shima gabadhan waxa la yiraahdo hawsheedu waa la bagtay 7 jir waa subhanallah wiil waa aragteen islaanka qaylinaysa social media dhahays wala iga farxumay waa wiil oo saqiir ah anoo tiila yaaban hadana xaladan wadaad wuxuu dhahay xaafadaan kamid oo sheegeen nina ril lagu qabto soo arbaan inta afka qayliyay ma soo qaylinaysa ala korin neef abursan walaalayaal waa la dhintay lama noola ya meel aadnana ma naqaan had
ya haddii la dhihi lahaa qofku waxaasay ku kooban yihiin maxaa naga dhihi lahaa wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaas war waxaas waxaa keena ciriiriga guurka la gelinayaa keena waxaa keena cilmiyarada dhallinyarada lagu abaabinaayo dhallinyaradan qur'aanka iyo diinta ha la baro qofka hadduu xataa ahludiin yahay boqolkiiba 90 xishood cilmiga celiya wallaahi taas xaqiiqada waa soo aragnay qofku hadduu xiruuyo wanaagsan xataa hadduu xumaato damco ayadoo wax ka sarfinaya aad aqoon laga sarfinaya arkaysa laanu jirkiisa fariish ah waxa ka buuxa yaani waxa ku qarsoon iimaaniyad badan ku qarsoon dhallinyaradii waxaa loo dhigdhigay xoogaa maarad markuu qur-aanka bartay in maadi la geeyo ma maadiya alla ka cabsi iyo waxaas ku hanuunina waa cilmul muufati wal bariis cilmi alla ka cabsi laga helo maba ahaba dhallinyaradii waa iska weynaaday khalaas waxa kaloo hadda bata quranaa u shayaadiin saaxiibada shayaadiinta awal maxaa la samayn jiray hebel oo saaxiib leeyahay waa la iska ilaali jiray hadda facebooka soo bax 5,000 oo saaxiib leeyahay 5,000 waa shayaadiin waa my friends oo kule meel geey waa asdiqadeedii kii oo ku raacayaaba roonaay sida la isula wareega balaayo la isula tuma waa la kala daali jiray kan caaw dhan halkaas la iska fiirsaa haye soo wadhe haye ogow firindisku laftiisu waa saaxiibkii oo caadi ha aqbalin qof aan ilaahay ka cabsigiisa yahay way jiraan dad mashaayikh iyo culimada dad saaxiib loo muxaadaraad hela oo amaanayno dhalinyaro badana rag iyo dumar laakiin ma loo badna marka wax ka daranna waa sii jiraan dhalinyaro marka hadaad aalada adeegsanayso sida khudbada aan ku sheegnay aaladu laba af ay leedahay af khayr iyo af shar ah wa sharru kathiir shartaana badan shartan iyo zinadan iyo fidnadan waa aakhiru zaman horta aan ogaana calaamatu saaca qiyaamadii soo dhawaatay marka ilaahay waxaan rajaynaynaa waa baryaynaa marka hadaanan sulda lahayn man ra'a minkum munkaran muxuu yiri falyughayyirhu bi yadihi ma hayno awooda doqonnimadeena na gaarsiiday qofkii munkarka gacanta ku zuuliyo fa lam yastadi' fa bilisanihi arabka ku zuuliyo ma sha Allah arabka dad badan ka hadla ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف marka waa ducaysanayna qof walba oo nagamida ducadu waa cibaado ilaahay ka baryo hatta haduu fisqiilow yahay oo hatta tuub uu yahay zaani yahay qofka haduu ilaahay waxaas hadda dad badan waxa ku leeyeen jaadka marka ka waanido sheekh iyo ducay waa jeclaha kuwaas horta asxaabul macaasi markasta ahlu naar ha ku adigu ha ku xukumin maxaa yeelay acmaasha khaatumada laga fiiriyaa walaalayaal